Assalaamu calaykum. Baraha bulshada waxaa maalmahan aad loo hadalayaa orodyahanka caanka ah ee dalka Ingiriiska u dheela ee ku caan baxay Mo Farah ayaa mar la waraystay ka sheekeynaya xog ku saabsan shakhsiyadiisa isagoo dibadda keenay macluumaad xasaasi ah oo khuseeya noloshiisa hoose. Ninkan darajada seerka qaatay 2016 isla markaana ah dadka ugu caansan adduunka ayaa sheegay inuu magaca uu ku caanamaalay ee Mo Farah aanu ahayn magaciisa dhabta ah balse uu yahay mid si been abuur loogu sameeyay isla markaana ka saxdii uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin. Orodyahanka ayaa sheegay inuu aabihii ku dhintay dagaaladii Somaliland ka dhacay halka ay hooyadiina ay ku nooshahay gudaha Somaliland balse isaga oo yar ayuu tagay dalka Djibouti halkaas oo iska heleen qoys aan hore isku aqoon oo geeyay dalka Ingiriiska. reerkan oo ahaa kuwo aanay waxba wadaagin qaab doose ahaan ay u geeyeen dalka Ingiriiska wuxuu sheegay haweenidii qoysku inay ahayd taawsha sida gaarka u waday iyadoo geysay guri ku yaala galbeedka London. waxa uu halkaa ka bilaabay nolosha qurbaha wuxuu sheegay in halkaas si xun loogula dhaqmay oo haweenidii Djibouti ka soo kaxaysay ay hortiisa ku jeexjeexday warqad yar oo ugu qornaayeen xogaha qoyskiisa oo ku noolaa magaalada Gabiley. waxa kale uu sheegay in loo diri jiray shaqooyinka guriga sida haynta carruurta iyo weliba hagaajinta guriga. waxa kale oo uu sheegay inay shaqadaasi ahayd mid dhib badan oo ku haysay culays xad dhaaf ah. Mo Farah ayaa sheegay inuu suuliga geli jiray si uu u ooyo isla markaana iskaga dhimo dhibaatada nololeed ee haysatay. waxa kale oo uu sheegay in loo diiday waxbarasho uu ku biiro maadaama howlaha gurigu aad u badnaayeen. muddo 3 sano ah oo howlaha uu adeeg ka shaqaynayay oo sida adoomaha uga dhex shaqaynayay guriga. Mo Farah ayaa ku biiray macadka Felham Community College ee halkaas oo la fadhiisiyay fasalkii 7aad. hase yeeshee waxbarashadiisa ayaana noqonin sidii la rabay waxaana ku adkaatay luqadda Ingiriiska oo ahaa tii uu wax ku baranayay. macallimiintiisa ayaa dareemay in ilmahani uuna haysanin daryeel iyo cid caawimaad siisa oo kale dadka waalid ahaan ugu diiwaan gashan ayaana haba yaraatee ugu iman jirin iskuulka gaar ahaan marka ay dhacayaan xafladaha loogu soo casuumo waalidiinta ubadka dhalay. Mo Farah ayaa intaasi kadib la soo baxay hibadiisa orodka iyadoo macallimiintii wax u dhigayay ay dareemeen inuu si weyn u danaynayo ciyaaraha. ka qaybgalkiisii tartan orodow kaga qayb galo dalka Latvia ayaa banaanka keenay in wiilkan yahay mid si weyn ugu soo baxaya dhanka orodada balse ma uu haysanin waraaqo socdaal ah. macallinkiisii Master Watkinson wuxuu aad u dareensanaa hibada ku jirta ninkan ayaa ka caawiyay inuu xeraysto dhalashada Ingiriiska isagoo isticmaalaya magaca Mo Farah kaasoo guud ahaan caan noqday sanadkii 2000. intaasi kadib wuxuu Mo Farah noqday xiddiga adduunka oo dhan si weyn looga yaqaan.